markii laga hadlayo bareerida khataraha ganacsiga dadka waxa loo qaybiyaa saddex nooc. nooca koowaad waa nooca u bareera khatar walbo. dadkaasi waxay la mid yihiin kuwa qamaarka ciyaaro oo aan marnaba xisaabinin ama aan ka fikirin xaddiga khatarta ay qaadanayaan. nooca labaad waa nooca mar walba ka cabsada inay khatar walbo noocay ahaataba u bareeraan. dadkaasi waa dadka aan ku wanaagsaneyn ganacsi inay bilaabaan oo ku habboon for example inay shaqaale iska noqdaan maadaama aan jirin ganacsi aan lahayn khatar. nooca saddexaad waa nooc ugu habboon oo ah dadka u bareera khataraha la xisaabiye ama wax loo yaqaano calculated risks. waa dad ka fiirsada nooca khatarta ay wajahayaan mar walbana iska ilaaliya inay u babacdhigaan ama u bareeraan khatar la hubo saameynteeda weyn ay ku leedahay ganacsigooda. waa fursad ku socota dhalinta u ooman wax isbarista joogtada. website-ka Baghdad Academy oo laga barto in ka badan 130 kooras ayaa la gaaray waqtigiisii ugu muhiimsanaa sanadka. hadda waxaa ku jira website-ka koorsooyin la dhimay qiimahoodii ilaa iyo 50% oo ku kala jira categories kala duwan. kuwooda ugu horeeya waxaa qayb ka ah project management, monitoring and evaluation, wash program, human resource management, sales and marketing, logistics and supply chain management, Islamic bank and finance, iyo report writing skills. waa qiimo dhimistii aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan si aad muddada kooban ugu horumariso levelkaaga aqooneed. soo booqo Baghdad Academy. wixii macluumaad dheeri ah nagala soo xiriir nambaradeenna WhatsApp-ka